السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا وسيلة يوتيوب دعوني سوي وسيلة جوفة جنا. فضلا هذا قصة سبسكرايب نوصل على مصطفى كل سوق ما أنت وحيدي ولا شيكو لكن بلاص حدنا شيكو حدنا ليس لكن نيجي شيكو سفع ودقيس تيا فهم دونه دقيس هبون شيكو ده أنا واحد أحمر تي قضي جبديس التلفون إذا سوي بسوي شيكو ده لكن وشيكو حدنا ليس sheekadu waxay ku bilaabatay gabadhii ayaa waxaa soo iibsatay telefoon qaali ah telefoonka markay soo iibsatay ayaa waxaa arkay gabadhii aabaheed ayaa ku arkay telefoonkii markay ku arkay telefoonkii ayuu ku yiri aabo gabadhaydii markaa telefoonkan soo iibsanaysay waxa ugu horeeya aad sameysay maxaa waaye waxay tiri waxaan u soo iibiyay ama aan u soo qaaday ama meesha telefoonka aan ka soo iibiyay aan hore ugu soo gatay gal ama qolof telefoonka wuxuu ku yiri telefoonka ama qolofkiisa qofku ugula taliyay telefoonka markaas uu iibsanaysay qofku ugula taliyay oo galkan ama telefoonkan uu fiican yahay ugu yiri miyaa jirto gabadhii waxay tiri mayo waxay ugula taliyay mana sababtoo ah anuu anfacayaa si uu telefoonka haduu dhulka iga dhaca ama midabkiisa koron oo qolofka u difaaco gabadhii ayaa aabihii ayaa ku yiri ma u malaysaa inaad qiimo tirtay shirkadii telefoonka inaad qiimo tirtay ama aad ceebaysay shirkadii telefoonka ma u malaysaa gabadhii ayaa ku tiri aaba mayo sababtoo ah shirkadda telefoonka laga iibsado iyadaaba nagula talisay inaan ka soo qaadano qolofka ama galka telefoonka aabihii ayaa gabadhii ku yiri gabadhaydiyey qolofka ama galka telefoonka miyuu qiimo tirayaa galka ama qolofka telefoonka miyuu qiimo tirayaa gabadhii waxay tiri maya sabab qiimo tirayaa ani ahaan qurux mooyee foolxumo ilama ahan sababtoo ah galka oo qolofka anuu anfaca telefoonka haduu iga jabo haduu iga halaawo anuu anfaca haduu ii fiican anuu anfaca laakiin qof kale shaqo kuma lahan qof kale oo oo shaqo ku leh arintaasi ma lahan laakiin intaasi aniga anfacayaan telefoonka haduu ii fiicnaado anaga rabo haduu igu xumaadana aniga rabino inuu ii fiicnaado ayaan jecelahay oo mar walba telefoonkayga oo mid dabiici ah ama mid cusub aabihii ayaa ku yiri haddaba gabadhaydii waxaad ogaataa yaa adiga inaad tahay telefoonka qolofkana uu yahay xijaabkaaga shirkadda ceebeynaysan ay tahay aabbahaaga waxaad ogaataa marka xijaabka inaad mar walba ku qalafsanaataa aad ku degnaato si biri ama birdabo ama maanta ay noqoto sharaftaada ay noqoto mid u dhowrsanaadaado waayo aabba jecel ma jiro gabadhiisa inay qaawanaato ama sharaf darro ay u keento markaan sidaas leeyahay kuma dhahayo ninkaas odigaasi wuxuu ka damacsanaya telefoonkaas iyo qolofkaas kaliya waa gabadhiisa ula jeeday laakiin waa qiso ama oon xikmadaysan waana sheeko laakiin waxay baraarujin u tahay inta gabadh ee adduunka ku nool waa fahantimano haddaad daawato videoga aad umahadsan tahay fiidiyoyaasha sheekooyinka qisooyinka way socon doonaan maalmahan maxaan video soo duubi waayey dad badan oo ila soo xiriiray waa jiraan oo yidhi maxaa kugu dhacay xogaa mashquul iska jira mashquul adduunyada taqaanaan marka saasay mashquul iskaga jiraa subscribe inoo badiyo share inoo badiyo commentiga soo qoro aad ay umahadsan tihiin kuna soo dhawaada haddana nagu cusub tahay waa ku soo dhaweynayaa qof la soo dhaweysta adaa u mudan haddaad hore inoola joogtina video share garay u gudbi walaalkaad joogin maqan internetka ka maqan maanta laakiin biri inuu soo galo macquul tahay ana subscribe ku saarneen subscribe badiyo share badiyo commentiga badiyo waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu sidaas iyo amaana allah